wasiir soo dhawaad department of finance right wasiir cabdirashiid janan oo ka hadlaya qaabka loo xiriyo qaabkii uu usoo fakaday xabsi kowdii bishii August ama bishii sideedaad ayaa waxaan ka baxay degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo oo hadda 40 kilomitir ii jirto. waxaan aaday Muqdisho, waxaana u socday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Mas'uuliyiinta dowladda shaki hadda ma aanan kala qabin oo aniga ma aanan islahayn wixii lagula dhaqmay hadda lagu sameeyey wax nin sugahayay ma aanan ahayn oo filahayay barnaamijka saas inuu dhacayo. waa ila xiriirahayeen oo way ogaayeen qayb ka mid ah sirdoonka hay-adda nabadgelyada qaranka iyo niman xildhibaano iyo wasiiro ah intaba. kadibna markii aan garoonka aadan cadda tegay waxaa barnaamijku isku bedeshay in lagu qabto meesha. horta aniga sidii ninka sargaalka jarnaalka ciidamada isbuuta Soomaaliya ka mid ka ahaa oo bulshada Soomaaliyeed horey ugu cadeeyayba xabsi la ima geynin. xabsi waa xarun dowladeed ama station ku yaallo ama xabsi dhexoo dowlad ay leedahay ha ahaato. ani waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed adiga hadda ay wareysanayo intaba aan u xaqiijiyo anigu xabsi dowladeed ama aan leeyihiin. markii la qabtay garoonka laga qabtay waxa ay qabtay niman booliis ah oo askar ah iyo niman dharcad oo isla socdo oo ninka dharcadka uu amrahaya ciidanka. laakiin aan fahmi kara ciidanka dowladda inay yihiin cid kaloo hadda meesha soo geli karana aysan jirin. kadib waxaa la geeyey xaafad aada u fog oo dabcan si dambe aan gadaal ka fahmay inay degmada Hurwaay ee magaalada Muqdisho oo area dowladda ay kontaroosho iyo area dowladda inta badan mas-uuliyiintiisa ay tagaanba aysan ahayn. waxaana lagu wareejiyey niman dharcad ah qabo, laakiin dib aan ka fahmay haddana inay boolis yihiin gobolka qaybta gobolka Banaadir ka tirsan oo Jarnal Saaddoon oo xukumo. muddadii marka aniga 5 bilood oo la hayay maalinba waxaa la geynayay guri xaafad ka tirsan ilaa ugu dambeyntii ay keenay xaafadda shubisguri ka mid ah. intii muddo oo 7 casho aan ku sugnaa, inta kalena waxaa la igu hayay xaafadda Hurwaa guryo ka mid ah oo dad shacabka Soomaaliyeed si bareefad ay u dhisteen. baa aniga iyo niman askar oo dhowr iyo 10 nin ah baa meeshaas ayada inta badan muddada meesha la igu hayay ma ahan xabsi dowladeed iyo xarun dowladeed midnana. qaabkii la dhaqmay haddii aan ku sheego xaqiiqan askartii haysay wax hadda xumaan ah oo ka baxsan awaamir la siiyo oo ay fulinayeen oo shakhsiyan ay ugu sameeyeen ma jirin. laakiin xumaan fara badan oo awaamir ah oo askartaas ku socoto oo inay la xabsi aan laguma haynin, nin gacanta dowladda ku jiro oo dowladda ay hayso. laakiin xaafada xamar ah marba guri la geynayo oo aan halaan isweydiiyo waxay ahayd guriga la geeyey baa la ugu hayn karay, laakiin ma aysan dhicin. marbo muddo markaan guri ku xirnaado guri kale lagu wareejin jiray oo qof shacab oo Soomaaliyeed si bareefada u dhistay oo la sii tiriyey oo qalab la sii dhigay. nolol ahaan meesha aan ku xumaa oo hadda dowladda ugu haysayna ma ahayn meel oo dhib badan ma ahayn markii laga saaro xorriyadda way jirtay hawlaha muddo loo jira xanuunsaday diiwaan in dhakhtar la ii keeno ama la igeeyo. nimankaas inta badan awaamirta waxay ka qaadanayeen oo ayagu qofka ay su-aasha weydiinayaan Saadiq Joon buu ahaa. Saadiq Joonna cidda uu su-aasha weydiinaya Fahad Yaasiin iyo waxay ahaayeen madaxweynaha dalka, xataa ra-iisul wasaaraha ma ahayn barnaamijka shuqulka walayn waxba kamuuse kalagu soconin wasiirka amniga midnana. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xataa systemka aan ku xiranahay kamuuse warramin. gabadha Fuusiya ah oo jarnaalka ah oo tadafeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ah oo weliba adiga gabar hawreerta ee anigana labada jeer ay hadashay xataa waxaan rabaa meel aan ku xirnahay iyo waxa aan ku suganahay midnana kamaysa warramin. barnaamijkii waxaa barnaamij kooban oo Saadiq Joon oo Jarnal Saadiq Joon oo ah taliyaha ciidanka ee gobolka Banaadir oo ujeedku ay ahayd haynta oo asaga ahayo ciidamadu asaga xukumay ay hayaan iyo nimankii aan siyaasadda saaxiibada ahayo siyaasadda ugu haystay oo madaxweynaha uu u sareeyay dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabadgelyada ee la yiraahdo Kulane. intaasuu ahaa barnaamijkii dad ku kooban. dabcan su-aasha ay aan weydiiyo ragga aniga marka sida gacantii ugu hayeen ay waxay la aadayeen Saadiq Joon raggaas kaloo la aadayeen mana suurtagelin in jawaab sax ah lasoo siiyo nimankii hawlaha. markii aan muddo 19 casho xirnaaba waxaa ii yimid Jarnal Saadiq Joon wuxuu igu yiri wasiir waxaad ku xiran tahay ciidamo gaba jooga oo 1000 askari ah inaad wareejiso dowladda ku wareejisid baan loo baahan yahay saasay madaxda qaranka ku leeyihiin. yaa ila baan ku yiri markii dambe wuxuu yiri madaxda ku madaxweynaha iyo waxa kula taliyaha nabadgelyada wuxuu yiri waxa wanaagsan aniga maxaabiis baan ahay mana ahan ciidanku shaati intaan gacanta ku taagay katabaan saarnaa waan ku yiri shaatigaas katabaan ka saaran warqad jeesha oo dowladda Jubbaland ka tirsan oo gada jooga inaan ku wareejiyo. waxaa leeyahay hadda maalinkii bishii 7aad 6 maxkamadda sida ummadda Soomaaliyeed loo qanciyay waxay ahayd waxaalihii lagu eedeeyay qayb ka ahayd. laakiin taas waxaan uga jawaabay in ciidankuna aanu hoos imaanay ciidanka Jubbaland inay taliyaal leeyihiin Soomaaliyeed saraakiil iyo xukunta inay leeyihiin. dabcan dhacay magaalada Kismaayo doorashada ahaa barnaamij siyaasadeed ku salaysan inaan ku xiranahay baan dareemay
oo hadaladii maalinkii ay qabtay la isticmaalo waxaa kamid ahaa in iyadoo leela kaftamayo soomaalidana waxay tirahdaa kaftan waaye dabuu tagaa iyadoo leela kaftamayo erayadii la isticmaalo waxaa kamid ahaa in laiga daba keeni doono madaxweynihii jubbaland axmed madoobe. intii aad marka gacanta dowladda ku jirtay ma dhacday inaad kulantaan ama aad la kulanto madaxda ugu sarreysa waddanka? may walaal lama dhicin. aniga intii aan gacanta dowladda ku jiray sadowdoon iyo nin sargaal ahoo golagashaan letor oo ku-xigeen asaga u ah oo la yidhaahdo jeego baa la iisoo diraayo fariimo laigu soo dhiibahayo. aad waa umahadsantahay walaalle. xaqiiqiyan barnaamijkaas horta barnaamij hadda aan raba inaan la wadaago way jirtaa inaan cidna isinin. aniga system aan isku xirxiray oo rabbi ii fududeeyay aan kusoo baxsaday kadib markaan arkay taboodii aan helay systemka hadda loola dhaqmay gobolka kale dadka ku noolaa gaar ahaan degmooyinkii balaxaw dowlo iyo luuq ciidamada darawishka soomaaliyeed oo dowlad goboleedka uu joogay iyo shacabkoodii in maamulkii gobol heer degmo iyo heer gobol intaba iyo magaalada muqdisho iyo niman kaloo saraakiil ah in heshiis ah lala galay in ay dowladda jubbalandna ay ka tirsanayeenna ay ku gacan seeraan ciidamadana ay wareejiyaan cabdishiidna loo soo daayo wax kastoo sameeyeenna looga baxay suurtageli weyday sababtoo ah waa midda aan lahaa ani horan ufahamsanaa haddii sistamka ciidanka lagala hadlayo sistam ka duwan inuu jiro oo nimankaas saaxiibada haysta ujeedkooda ay tahay in ay qadiyad jubbaland oo ay ka aragti gaar ah ka qabeen ilaa ay xal u helaan inayna aniga isdeenayni barnaamijha ii muuqanayay. arrintaas markay dhacday kadib oo iisoo baxday in juhdi badan iyo dadaal badan oo aan gelinay gobolkaas ama goboladaas xaqiiqiyan degmooyinkaas aniga xabsigan oogana soo baxay gurigii afduuli laigu hayay baddana aan usoo maray 700 kilomitr aan badda gudaheeda usoo maray. barnaamijkaas go-aanka marka aan qaatay ilaahay waan kala saartay oo rabbina runta niman soomaaliyeed oo iskale baa ii waday cidna ima soo raacin keligay baan ahaa muddo 3 maalin iyo 2 habeen ah muqdisho joogay markii aan baxay kadib waxaa ahayn waxyaalihii igu cajka badnaa ma aanan islahayn hadda dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaheeda amniga way ku arkayaan ama waa lagu qaban doonaa ma aanan ka qabin ma cabsi ama qabin laakiin niman aan dirirnay oon fahmaya inay dadkuna saameyn badan ku leeyihiin bay cabsida ugu badneed iyo khatartii ugu badneed oo aan qabay labadibana rabbi baa iga badbaadiyay tabaaraka watacaala. waxaana ii suurta gashay in xilli maalinimo ah soo raaca doon kadibna aan kismaayo ku barnaamijkaas waan ka shaqeeyey waan u mahad celinayaa intii igala shaqaysay. dabcan hadda qofku keligiis markuu shaqeynayo keligiis wax ma qaban karo in lala shaqeeyo dabcan dad unbaa ila shaqeeyey aan u mahad celinayo shaqalmiya rabbi wuu leeyahay rabbina waa u gargaarayaa. marka barnaamijkaas rabbi waa ii fududeeyey ilahay baan ku mahadinayaa tabaaraka watacaala. wayna ii suurta gashay inaan xabsigaas ka baxo ama afduubkaas igu haya gurigaas ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay dhisteen aan ka baxo kadibna 2 maalin iyo 3 maalin iyo 2 habeen aan ku sugnaado muqdisho. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan la wadaago dadka ay rabaan in ay amnigooda ilaaliyaan oo ay magaaladaas caasimada ah oo maalin kasta dhibaatada ka dhacaysa wax ka qabtaan. anigaan cabdishiida oo siyaasi ah oo 100 calaamadood leh oo la raadinayay oo garoon iyo meel kasta oo gaadiid aan isticmaali karo uu ka baxayaba ciidamo la dhigay 9 saac oo galabnimo ninka barnaamijka ii suurta gashay waaye inaan doon kasoo raaco meel ay ciidamadii dowladda oo raadinayay ay joogaan. waxaan isleeyahay taas marka aniga cabdishiida qofka i qaban waayo ama arki waayo cunug yar oo 20 jir ah ama 18 jir ah oo ummadda soomaaliyeed dhibaateynayo inuu waxba ka qabo. awlaal 3 maalin baan ku sugnaa muqdisho 3 maalin iyo waxaan ku sugnaa 2 habeen kadib baan doon kasoo raacay oo ciidan soomaaliyeed ah oo dabcan dadkii hayay baad ka hadlaysaa oo kamid ah oo aniga ila socday ama isoo raacay ma jiraan. dabcan dee dadkii igala shaqeeyey intaas baddaan ku dhex jirnay dabcan dee wixii aan cuni lahayna aniga nimankii ila socdayba waxay ahayd wax doontii noogu diyaarsanaa. nin baa dalkiisii asagoo nabad oo wax dhib oo ku qabo usii jirin ka tahriibo oo dalal kale u tahriibo oo bad intaas 10 kilomitr aado oo wuxuu la kulmahayo aanan ka warramin markii uu baddaas hadduu lacalla ka badbaado. anigu nin aada xaqiiqiyan wuxuu loola dhaqmay baan ahaa. muqdishona kismaayona waxay ii jirtay 500 kilomitr baddan inaan ka badbaado iyo meeshii aan marayana rabbi aniga oo 120 casho urkooyda ku jirto rabbi ii qoray oo wixii igu dhacaya inaan marnaba gafaynin qof muslimo caqiido lahaan ahayo waan aaminsanaa. in marka aan go-aankaas qaato wax cabsi ah oo riski ah oo ma arkaynin inaan badda maro taasna waxay ahayd mid xorriyadiida iyo xaqiiqiyan dhibaatadii markaas igu hayay aan islahaa waad uga bixi kartaa. markii aad timid cabdirashiid magaalada kismaayo maamulkii aad ka tirsaneed ee jubbaland ayaa ku soo dhoweeyey kadibna waxaa lagu soo qaaday magaalada nairobi. marka yaa ku soo qaaday maxaase lagugu soo qaaday? walaalow aad baa umahadsan tahay waa sax barnaamijkaas inta badan kismaayo bay ahayd ujeedkayga mar koowaad inaan tago. kismaayo markaan tago waxaan dareemahay shacab soomaaliyeed
oo mas-uul u ahaa iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed oo reer jubbaland ah oo aan iskuleega ahayn oo lexjaallo fara badan ii lahaa inay ii horeeyaan waxaa ii muuqanaysay inaysan caafimaadkayga sax u ahayn in aan magaaladaas kismaayo intaan tago aan saacado sii joogo oo shacab iyo mas-uulba maskaxdeyda la jaamgaran doono sababta marka aan u joogay muqdisho 2 maalin iyo 3 maalin iyo habeenkaa waxaa qayb ka ahayd in aan diyaarsado in aan kismaayo markaan tagabo haddii rabbi nabad igu geeyo inaan kasii baxo oo sababtoo ah markii aan aniga ka baxay meeshii aan ku xirnaaba waan awooday doontii waa ii diyaarsaneed waxaan awooday inaan doontiida fuulo oo aan tago oo isla subaxiiba aan kismaayo subaxaan tagay habeenkeedii oo aan kismaayo u hoyda waa awooday sababta marka aan muqdisho u jeedo waxay ahayd ba inaan magaaladaas kismaayo oo aan madaxda shacabka soomaaliyeed aan u ahay iyo mas-uuliyiintii ilaleegada ahaa intaba ay joogaan aanan kusii sugnaan karin oo maskaxdeyda jaamgaran fara badan ay ku dhacayso annagana nin muddo 5 bilood ah dabcan keligii ka mid yahay madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam waxaa jira warar sheegaya in markii aad timid magaalada kismaayo halkaasi ay kaa soo qaaday diyaaradda ay leeyihiin militariga waddanka kenya arrintaa ka waran maya arrintaas waxba kama jiraan walaale wax dowlad kenya gaadiid uu leeyahay oo aan isticmaalo aan ku tegay nairobi ma jiro